koobiyo labaatan maalin jimca shirkaygan jaraa'id wuxuu daaran yahay isu soo bixi ururka ka uu saaka lahaa iyadoo oo aan wadanno khudbadihii iyo xafladihii waxaana soo galay dhallinyaro magacyadooda la garanayo ururada ay ka tirsan yihiinna la garanayo waxay nagu bilaabeen dhagax waxay dhaawaceen ilaa 5 qof baawur waxay ka jabiyeen muraayad ka jabiyeen weerar xoog leh bay nagu soo qaadeen dhallinyaradaas waa la garanayaa waxay ahaayeen ururka mideeye iyo ururka sinaan iyo cadaalad magacyadooda la wada garanayaa annagu waxaan maanta sheegaynaa maalintii annaga oo soconayna nal ku soo dhaweeyay meesha la yiraahdo xasbahalle waxa ururka ka lagu dhuftay ganaax waxay u hoggaansantay ganaaxii waxay bixisay lacagtii maanta waana la soo weeraray waana la laayay markhaati bay lahayd evidence iyo cadaymo baan haynaa labada urur dad ka tirsan inay soo weerareen inay dhagaxnaga la dhaceen inay dhallinyaro gabdho iyo wiilal ay dhaawaceen inay gaari muraayad ka jabiyeen inay ciidanka la dagaalameen warkaasi war cad weeye waxaan u sheegaynaa Tibek dacwad rasmiya ayaan waxaan ka soo gudbinaynaa haddii rabbi ururkaas waxa aan keenaynaana waa cadaymo rasmi ah in maanta dhagaxna la dhacay inkastoo aanu nahay dawladdii dulqaad badan aan muujinayno dadku dadkayagii yihiin annagu aan xisbiyada ha la aado haddana ha la isdilo ha la isdhagxiyo maana oran qofkii qof dhagxiya ama qof dila waa dembi caadiya kaas dembi madaniya weeye sharciga ilaahay baa lala tiigsanayaa waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa weerarkii maanta ay sameeyeen labada urur waxaan leenahay ummadda reer aylow waa u jeedaan meesha wixii ka dhacay cududdii iyo awooddii ururka ka markii la arkay waa la adkaysan waay waxa ilaahay og yahay baa ka dhacay dhagaxaasaa ka dhacay dagaalkaasaa ka dhacay waa cambaaraynaynaa waxaan rabnaa haddii rabbiidmo in jawaab degdega nala ka siiyo arrintaana la ku sameeyey dadkayaga waxaan leenahay istajiya waxaad tihiin ururkii hormuudka ururada waxaad tihiin ururkii dawladda dadkaasoo dhan idinkaa madax u ah waxaan rabnaa inaad isdejisaan inaad dulqaad yeelataan waxaan u ducaynayaa ilaahay inuu noo caafiyo dhallinyaradii gabdhaha iyo wiilasha ahaa oo la dakhray oo dhaawaca oo dakhran baawurka la jabiyey muraayaddiisa la jabiyey hawshiisa annagaa bixinayna haddii rabidno annagaa dhammaynayna baawur shacab buu ahaa baawurtii noo shaqaynaysay buu ahaa baawurkaasna muraayaddaa laga jabiyey iyadana waxaan leenahay cidaa u raacanaysaan ma jidho laakiin waxaan rabnaa in la istajiyo sharci baan dirnay sharcigaasaan ka warsugaynaa Tibek baan ka warsugaynaa annaga maalintayada nooma turayna inaan odayaasha loo turin baan rabnaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan reer ayl waxaan ugu baaqayaa 25 bisha sida aynu ku ballannay dhagax la tuuray iyo qof la dakhray midna mabdi'ii iyo rabitaankii shacabka dhinac uma wareejin karo waxaan rabnaa sideenna haddii rabbi idmo aad iyo aad baan rabnaa inaad isku dejisaan aad iyo aad baan rabnaa inaad dulqaadataan dhallinyaro yaryar weeye dadkeennii weeye haba yaraatee wax dhiba ma rabno inay meeshaa ka dhacaaniin waxaan rabnaa oo ugu baaqayaa taageerayaasha ururka ka waxaan ugu baaqayaa deganaan dulqaad ilbaxnimo inta inaan muujisaanin adeega mareeg swipe account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay